asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa kaalintaadii tiiri oo kuusoo bandhigaysa barashada luuqadda hollandeeska leeqan netherlandstal. barashada luuqadda hollandeeska ama af hollandeeska waxaa lagu magacaabo lezen and schrijven. qoridii akhris ayaa lagu baran doonaa koorsadan. waxaa kaloo luuqadda lagu bari doonaa dadka raba in imburkanka laga caawiyo, imburkan courseska in laga caawiyo dadka doonaya ayay koorsadan iyadana ay u tahay. koorsooyinka waa laba xaaladood, mid life u baxaysa iyo mid maaragtay online ah. ha moogaanin marka mar walba annaga waxaan soo bandhignaa wax ummadda ugu jiro faa'iido, kama shaqayno dib u dhaca ummadda. hadafkeena waxaa waaya inaad noloshaada wax ka bedasho, inaad cilmi yeelato, mid adduun iyo mid aakhiro. luuqaddana ogow waa key of life, furaha nolosha. furaha nolosha haddaa hesho marka waad guuleysanaysaa. leeqa netherlandstal waxyaalaha lagu baran doono doonaysaa inaad barato luuqadda af hollandeeska. jawaabtaada haddii hay tahay koorsada aday kugu habboon tahay. wadanku waad ku nooshahay waqti dheer, waadna u baahantahay. wat moet je leren for inburgen courses? maxaa lagu baran doonaa om inburgen examen te halen, inaad soo qaadato inburgo maaragtay imtixaankiisa. moet je op taalniveau B1, luuqadda B1 lagu magacaabo ayaad soo qaadanaysaa ama A1 loo yaqaan. kunnen lezen, inaad akhrin karto. luisteren, inaad dhegeysan karto. schrijven, inaad qori karto. en spreken in het Nederlandstaal, iyo inaad ku hadli karto. dadka inta badan oo iska bartaa hadalka way tutuuraan sax iyo qalad, laakiin sida loo qoro iyo sida loo akhriyo aada ugu adag. daarnaast moet je kennis hebben, marka waxaa laga rabaa inaad barato van Nederlandse samenleving, oo ah inaad dadka Holland siday u nool yihiin barato. life in Netherland wax lagu magacaabo nolosha Holland. om het onderdeel kennis Nederlandstaal maatschappij oo KNM loo soo gaabiyo te kunnen maken. marka walaalaha danaynaya marka tijd inburgen leren Nederlandstaal. luuqadaas intaa baranayso maxay tahay? Nederlandstaal wonen en werken. 3 jaar oo qofka tijd haystaa. dabcan qamitigiisa koorsadaas inta badanba qarash ku bixisaa. duwa dabcan ayaa budget ku siinaysa. marka waxaa lagaa rabaa koorsadii inaad 3 sano ku dhammayso. lacala waxaa dhici karta by formal as u sick office isbaan qarbeent, haddii gabadha uur leedahay dee cudurdaaray leedahay, iyo haddii aad jiran tahayba oo xanuun yimaado dee aad wadi weyso. marka inta badan qamitiyada qaar way ka dhaafaan, laakiin in lagaa dhaafo adi dankuguma jirto. dadka qaar baasboorka si ay ku helaan ka fikiraan, laakiin waddan aad degan tahay afkiisa fahmayn maxaa kuu soo kordhaya? wax kusoo kordhaya. walaalaha meel aad joogtaan baa laga faa'iidaysto. waxaa idinkaga tegay meel kastoo joogtaanba. amaano allah.